هاي أصحابي وأنا دي السلامي ما أنت نحلي مد فيديو كله فيديو قاسو برنامج كيني دمر أدق إن داوديال سادوك تهين إن فيديو جن وحنوسو دايسيان أنا وقوال أتكانو وأنا كنت سالة قادنو ما أنت نحينوها يا هوينات كلا يدنا أدق ورنتي لقدي كرت سالة إن هوينات داسي واه إلهان عمر قصة جوش إلهان عمر محو كدغان yahay qisada gabadhan waxaan ka fiirinaynaa kaliya dhinaca guusha iyo dadaalka ay samaysay ka qof ahaan qof soo maray duruufo aad u qallafsan laakiin guushaas xaqiijiyay dhinaca siyaasadda iyo koongareeska iyo siyaasadda Mareykanka wax naga galay malahan qisada Ilhaan Cumar waxay daliil cad u tahay in qofka bini aadamka uu duruufiisa qallafsan ka adkaan karo inuu xaqiijin karo waxyaabo aad u badan ayadoo ay jiraan duruufo ku hareeraysan gabar ku jirtay xero qaxooti oo aan xaalkeeda wada ognahay laakiin gali doonto koongareeska Mareykanka waa qiso halgan shakhsiyadeed oo ku tusinayso sidaan sheegnay in waxyaabo badan qofka bini aadamka uu xaqiijin karo haddii ay qalbigiisa ka soo go'do inuu xaqiijiyo arrinkaas qisada guusha Ilhaan Cumar saad videoga ku daawateen haweenadaas waa Ilhaan runtii waa haweenad adag oo heer gaadhay Mareykanka wax ku ah oo caana runtii markaan waxay ka sheega haweenadaas Mareykanka waxay ku tagtay qoonti ahaan iyadii family-geedii dhibaato badan ayay u martay dhibaato badanna way soo dhaaftay nolosheedina wax badan ayaa kula kulmay laakiin saan maanta oo aragnaba heer ay taagan tahay boos weyn ay ku leedahay Mareykanka qof kasta oo dadaala heerka waa gaadhaya qof kastana naftiisa wuxuu ku taxalujiyo sidaanu ka niyad jabin waxa dhici karta dunida inaanay mar qura ku suurta galin inaad wixii ku celisid oo ku celisid mar bay hagaagaysaa asxaabay saad oo aragteen dumarada adag aan video ahaan mid ku soo deynayo runtii waxaan rabaa inaan wax ka barano nolosheena maxay heeday tusaale uga dhigno inaanu gaari karno inaan isku taxalujino asxaabi aad baad u mahadsantihiin channelkayga subscribe gareeya like gareeya share gareeya dambaleelkana ha ilaawina waan salaamaya Kula hadlaya